halkan aanu maanta taaganahay waxa la yiraahdaa Togwacalka waa habar heeshay dusheeda waxay ka mid tahay deegaanada hoos yimaada gobolkan Saraar sida runtii ay biyalaanta iyo baadlaanta baasan ay ka jirto waxaanu halkan aniga iyo odayaasha iyo xildhibaan Cabdulaahi aan maanta ku gudoomaynaa laba booyadood oo runtii naga soo gaadhay hablo muxsiniina oo ay ugu horeyso ama ay hormuud ay tahay ambassador Ayaan Maxamuud waxaan sida runtii aad uga mahadcelinaynaa hablahaasi deeqda iyo kaalmada iyo sadaqada ay runtii ay soo gaarsiiyeen dadkooda jilicsan ee deegaankan hoos yimaada gobolka Saraar booyada labaad waxaanu saaka ku shubnay barakacayaashii magaalada Caynaba gudaheeda waxaan runtii aad iyo aad uga mahadcelinaynaa hablaha deeqda ayna soo gaarsiiyeen anaguna aan wakiilka uga nahay aniga iyo xildhibaanka iyo odayaasha deegaankuba waxaan halkan uga faa'iideysanayaa sida runtii hablaha iyo wiilasha iyo deegaankan u dhashay guud iyo dibadba ku nool inay iyaguna run ahaantii roolkoodii ay ciyaaraan oo iyaguna wixii kaalmo ahaa taakulayn ahaa inay dadkoodii iyaguna ay la soo gaadhaan waxaan intaa ku darayaa oo aan dadka mar walba rabaa inaan xasuusiyo inaynu Ilaahay u noqono oo Ilaahay aynu barino waayo Ilaahay subxaanahu wa ta'ala isagu un baahiyaadkeena binaadan ahaan dabooli kara marka waxaynu baahanahay inaynu Ilaahay barino oo aynu soo noqono oo aynu iscaafino oo gacmaha Ilaahay aynu hoos dhigano waayo Ilaahay un baa runtii ina kafeyn kara baahiyaadka iyo dhibaatooyinkan iyo omaskan iyo kulaylkan runtii ka jira deegaankeenan hablahana aad baan uga mahadcelinayaa sida runtii assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan aan taaganahay waa deegaanka waa Togwacalka oo hoos timaada magaalada Habareeshay gaar ahaan gobolka Saraar waxaan halkan gudoonsiyeynaa dadka abaarta ku dhacday ee biyalaanta ku dhacday laba booyadood oo biyo ay hablo ku soo deeqeen dad muxsiniina iyagana waxaan leenahay halkaas ka soo saarteen waxsan Ilaahay ha idin geliyo inta ka soo saarteen shanteed lag Ilaahay ha idin geliyo Ilaahayna ha idin barakeeyo waxaan ku wareejinaa imka labadii booyadood mid kamida tii kalena waxaan ku wareejinay barakacayaasha gobolka Saraar ee degmada Caynaba muslimiintii biyaha soo bixisay iyo xildhibaan Maxamed Haybe Maxamuud oo isaguna joodi badan geliyay iyo anigoo aad uga hawlgalay mudane Cabdulaahi Colaad Yuusuf dhammaantiin waxaan leeyahay ku soo dhawaada bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waxa la yiraahdaa Cali Sugaal Xaydle waxaan ka tirsanaa odayaasha deegaanka waxaan joognaa iminka taaganahay Togwacalka wuxuu hoos yimaadaa tuulada Habareeshay oo tuulo balaarana in badan dad badan tuulooyin badan iyo dad badan koobsata marka dhulka waxa ka jira abaar baa ka jirta waxay ninka dheer iyo ninka weyn wax lagu warramo dalka ka jirta dalku aad iyo aad ayaa abaar uga jiraan abaar saddex jirsatay gugii dhaweyd iyo dayrtii dhaweyd iyo dayrtan midna lama arag marka dhulka abaarta baahsan baa ka jirta dad iyo duuba waa la jilcay marka biyaha aan noo soo tirteen dadkiina muslimiinta ee u dhashay deegaanka u dhashay hablaha la magacaabay aad iyo aad baan idin salaamaynaa waan idin mahadnaqaynaa alaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku bushaaranayaa hablaha sida xildhibaanku u sheegay deeqda biyaha loo keenay waa idinka mahadcelinaynaa 90% Ilaahay meesha ka soo saarteenna xasanaad ha idinku daro ما شاء الله بركة حبلها بيها نوع كاني عادي عاد بنو مهدلنا يجا والدين تود مسلمين تبع عادي عاد بنو مهدلنا إلهي وحنا كبرينا ما شك صارتين وخير قبل إلهي ذكريه